maskaxdu waxay ka koobantaa meel ay fadhiyaan goobo ay fadhiyaan jananada wax maamulaya fartaan isma dhaqaajin karto haddaan janankaani oran dhaqdhaqaaq isma dhaqaajin karto marka goobo ayay jananadu fadhiyaan goobta hadalka halkaasa laga xukumaa goobta maqalka halkaasa laga xukumaa goobta dhadhanka halkaasa laga xukumaa goobta aragga halkaasa laga xukumaa wax allaala waxaad shaqo dareentid ama aad qabatid halkaasa laga kala xukumaa goobahaas askartaasi waxay leeyihiin waayro yaryar oo dhuudhuuban oo ka soo baxaya oo aadaya neerbayaashii aadaya wayradaas ilaahay su ku xanaanaynayo sida kuwan bini aadamkaba korontada loogu daboolay caagga loogu daboolay maxaa caagga loogu daboolay haddaan taabto dabkiiba ay qabsan lahaa ayuu ku daboolay 24 saac ama fakar ama hadal ama soco shaqadaas baa socoto wayradaas maraysa haddii dhaawac yar gaaro wayrkii bal iska dhaaf janankii haddii jananka dhaawac gaaro lugtiyo gacantii halkuu xukumay baa curyaamaysa oo idinka maqlay hebel baalig baa ku dhacay baaligu waxa weeye goobtii gacanta laga xukumay buu ku dhuftay xidid ka xir hebel hadalkii baa gam ku yiri goobtii hadalka laga xukumay buu ku dhacay nabarka ama xabadii haddii xabad lagu dhuftay kaga dhacay ama intuu daar ka soo dhacay bay kaga dhacday qaybtii lugta xukuntay ama qaybtii kaayada xukuntay haddaanu jananada dhaawacin ee uu dhaawaco xididadii isku dhowaa ayaa markay shaqada qabanayaan ee wareegayaan marmar istaabanaya maxaa dhacaya xanuunkaad u taqaanaa suuxidda hebel waa suuxaa halkaa ninkii taagnaad maqlaysaa gib korontadii baa haysata intaa ilaahay waxooba buu kugu xirxiray kugu habeynay si shaqadaadu u kala socoto alxamdulillahna waa lagaa leeyahay alxamdulillah keliya ayaa lagaa leeyahay xubin walba haddaad gaarkeeda u qaadatid keligeed ayaa aayada sida u shaqaynayso xubin walba sida u shaqaynayso carabkaani ma hadlo carabku gacantan buu la mid yahay midig haddii carabku hadlo gacantuba waa hadashaa waayo carabkana waxaa loo yaqaanaa oraah gacantana waxaa loo yaqaanaa qoraal labaduba waa hadlaa marka waxaas oo kayd ah oo meel yaal balan ka soo qabanno maskaxda gudaha ku jirta haddana qaybay u kala baxdo iyadoo kooban waxaa loo kala yaqaanaa maskaxda weyn iyo maskaxda yar maskaxda weyn waa taas la shaqaynaysa garaadkaaga gacanta qaad hadal yeel dareenkaaga ogaanshahaaga la shaqaynaysa iyo waxaadan ogeyn maskaxda yar ee qadaadka xigtana waxay la shaqaysaa ilaahay wuxuu kugu abuuray dhulkuna wuxuu leeyahay miisaan soo jiidasho ee gravity haddaan in yar lexdo gravity-ga ay jiidana way ridaysa haddaad sawir qaadid inaan kubad cayaaraya haddaad qaadid sawir ka qaadid waxaad arkaysaa isagoo madaxa ku tuuriya kubadda 19 meelood buu iska jijabinayaa 19 meelood si uu kubadda madaxa ugu dhufto oo muxuu dhici waayay samaduu marayaa muxuu dhici waayay maskaxda yar baa xubin kasta oo muruqa oo jirka ah waxay geynaysaa
inaanu dhicin haddii xagga uu dhici lahaa muruq kale xagga xiga ayay ka shaqaysanaysa soo celin soo qabanaysa marka waadiga iska laafiyoonaya waadiga gacmaha maanta oo dhan wax ka shaqaynaya waadiga adoon ogeyn hadda midal gaari baad wadaa ama teebaad garaacaysaa computer baad garaacaysaa maskaxda weyn garashaday leedahay wax inay qorto laakiin markii computerka lagu baro tayar baa ku filan inay gacmaha iyadoon fakarba kugu jirto tayar baa ku filan automatic inay u wado shaqadii gaariga aanu la sheekaysanaya shiiqa maanta oo dhan ayaan gaariga iska wadaya ilaahna wuxuu yidhi laba qalbi qofka uma aan samayn laba qof kama dhigin ma ahane tan baa rikoor garaynaysa wixii noqosho u baahan wax kastoo noqosho u baahan inanka kubadda iyo adigu haddaan training loo samayn adu waad dhacaysaa kubadda markaa istiraadid madaxa la aad waad dhacaysaa laakiin isagu training markii maskaxda yareed loo sameeyey wuu qayba meel kastoo isku tuuro dhan kastoo isku tuuro wuxuu og yahay jirkiisu inuu ka adag yahay jirkiisa waxaa marka ay u kala baxaan qayb dareen qaadayaasha iyo qayb dhaqdhaqaaq ama shaqo fulin qaybta dareenku waxay u kala baxdaa qayb dareenkeeda aad adigu garanaysid qof baa i taabtay anigu waan ogahay dareen waa dareenaan ogahay laakiin waxaa jira 1 milyan oo dareen oo kugu socdo naftaada badbaadinaya oo adigu aadan ogeyn haddii masyar luta kaa taabto anigoo la sheekaysanaya sheekh anoon ogeyn ayuu jirkaygu dareenkii xataa maskaxda la gaarsiin maayo xambulaha laga soo celinaya amarka lugta la soo cara lugta la soo cara maskax inaan fakaro ma masbaa ma waxaan baa layma ogola waa badbaadadaada haddaan taabashadu jirin haddaan xanuunku jirin maqaarkaagu xanuunsanayn haddaan kulayl iyo qabow aadan dareemayn noloshu kuma suurtooda